fanka ilaa iyo intee inaad ku sii jirtay aad jeceshay anigu kaba bixmaayo dana ma soo malay intii heesahayga dhageysan jirtayna hay iska deyso meesha ku aragtaan ee mobilka ay ku jiraan inkastoo waayihii ugu dambeeyay ay soo badiyeen fanaaniinta ka baxay fanka fanaankii hore maxamed saciid cabdi biike isla waqti xaadirkana la baxay maxamed mubarak ee fankii ka fadhiistay iyo nimcaan hilaac kadib nimcaan hilaac oo la weydiiyay su'aal ah xilma ayaad fanka ka baxaysaa mise leedahay inaad fanka ka baxdid nimcaan hilaac ayaa ku adkaystay inaan weligii fanka ka bixin uuna ku jiri doono weligii laakiinse maxamed biike ayaa hore u sheegay cid kastoo heesihiisa dhageysata in ay iska saaraan labada hadal ee ka soo yeeray labadan fanaan ee giiga Soomaalida caanka ka ah ayaa noqday hadal ah kaafi kala dheeriya laakiin si hadaba saaxiib muuqaal ayaa niga diyaariyeen tan nila wadaagin saaxiibaal ugu horreyn waxaan ka codsanaa saaxiibaan muuqaalkeena like saarto si gaaro dad badan channelkana subscribe ku qabo saaxiib si aan saacadaha soo socda guul u xaqiijino waad ku mahadsantahay jaanqaadkaaga ee ku soo dhow muuqaalkeena maanta saaxiibayaal degdeg nimcaan hilaac fanaanka weyn ee waqti xaadirkan bariyihii ugu dambeeyay xagga iyo qurbaha ku maqnaa laakiinse dawladda xilkeeda sii dhamaanay uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayuu xil ka hayaa isla waqti xaadirkan kooxda waabari ayuu u yahay madaxda ugu sareysa laakiinse nimcaan hilaac oo la weydiiyay sababta uu fanka uga bixi laayay maadaama dadkii ay iskuulodka haayeen ee mar ay soo wargaleen khadka fanaanimada ay waqti xaadirkan badankooda ay ka fadhiisteen ayaa la weydiiyay sababta uu isagu isla waqti xaadirkan fankii ugu sii jiro kaasoo kadib markii su'aal la weydiiyay uu baraha bulshada lagu faafiyay ahayd in uu weligii nimcaan hilaac fanka ka bixi doono dadkii fanka soo garan wahaa ay si khaldan u fahmeen nimcaan hilaac ayaa ku adkaystay inaan weligii fanka ka bixin laakiinse taas ayaa ku noqotay dadka Soomaaliyeed markii hore aaminsanaa in nimcaan hilaac haddii maxamed saciid biike uu ka baxay fankii in isaguna uu ka bixi doono laakiinse halkaas iyagu quuskooyay dadkii ka aaminsanaa warka sidoo kale saaxiib nimcaan hilaac iyo maxamed saciid cabdi biike ayaa waqtiyada kamid ah waxay haayeen fanaaniin agtooda isku dhow kuwaasoo mararka qaar ama waqtiyada qaar isku koox ku jiray sida xidigaha geeska markii uu nimcaan hilaac intii aan Soomaaliland laga cayrin uu ku joogay Soomaaliland uu joogay laakiinse maxamed saciid cabdi biike iyo markay iyo nimcaan hilaac isku kooxda haayeen waxay haayeen fanaaniin aad iyo aad iskugu xidhan runtii kuwaas oo ka dhaxaysa saaxiibtinimo aad u weyn laakiinse saaxiibaal waxa xusad mudan in maxamed saciid cabdi biike imaka loo yaqaan maxamed mubarak sheekh weyn in uu raacay wadadii guusha ilaahayna sidaa ku hadeeyay uu ka dhex baxay fasiqii iyo dambigii uu dhex badaalanay isagoo da'daasa laakiinse waxa hoog iyo khasaaraha saaxiibaal in imaka nimcaan hilaac uu dhex dabaalanayo wadadii hoog iyo khasaaraha in aan aakhiri adduunna meelba waxbaan ugu qornay taasoo وهريهمين هسه iyo waxaan loo jeedin saaxiibaal u dhex dabaalanayo sidoo kale imaka sheekh maxamed mubarak in uu masaajidada ugu waaweyn Hargeysa uu dikriga iyo subtaxasa ugu rogayo sheekh maxamed mubarak laakiin se halkan saaxiibaal nimcaan hilaac in ay dadku kula taliyaan oo uu ka baxo imaka maadaama uu nin weyn yahay in uu fankis kaga baxo uu xagga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iskaga noqdo ayaa ila wacnaan lahayd saaxiibaal hadaba saaxiibaal waxaan rajaynayaa in markii ugu horreysay aan muuqaalka like saartay channelkana aad subscribe ku samaysay muuqaalkana aad la sii wadaagtaa asxaabtaada si u sii gaadhaan dadka kale asxaabteena ka mid noqon doona insha Allah hadii Allah awood dalmo aad iyo aad ayaa mahadsantihiin saaxiibaal barnaamijkeeda muuqaalada quruxda badan aan halkan soo gelino saa ula socotaan sidaas nabadgelyo iyo muuqaalkeena xiga insha Allah way isku iman doonaa saaxiibaal nabad ay saaxiib